الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنو ونكسن الداوديال كسو دوادا قصدنا مانتي ونوغا هدلينو arrin si weyn u taabanaysa qalbiyadiina ana filay inaad kaga bogataan sheeko cashar si weyn loogu qaadan karo taasoo qof walba oo go'aan gaarta aakhirka natiijada ay dhaxlayso ay noo sii sheegaysa inoona qeexaysa ka waran haddii qofkii dunida aad ugu jecleed oo kaa tago adiga oo go'aansaday inaadan murugada ku dhex lumin balse aad buur u jabiso dartiis waayahay tani ma ahan sheeko mala awaal ah waa qiso dhab ah oo ka dhacday dalka India waa qiso nin sabool ah oo aan haysan wax lacag ah mishimo waaweyn balse haystay jacayl iyo go'aan kama dambaysa waxa uu qaatay dubbe iyo biryar wuxuuna wajahay buur weyn oo dadku u arkayeen wax aan la jabi karin maxaa ku kalifay inuu sidaas sameeyo sanado badan ayuu ku qaatay maxayse noqotay wadadii uu abuurayay ka doonayaan inuu ka sameeyo buurta dhexdeeda miyuu ka sameeyay mise uu ku guuldaraystay qisadan waa sheeko ku saabsan jacayl murugo adkaysi iyo sida kaliya ee u bedeli karo qof shakhsi ahi nolosha dad badan oo goob ama deegaan ama dal ama tuulo ku wada nool waxaad ka daawanaysaan qiso waana TV ku soo dhawaada qisadeena maanta oo uga hadlayno arrintaas muhiimka ah waxaa jiray nin ku noolaa dalka India waxaa la oran jiray Dasrath waxa uu ku noolaa tuulo yar oo ku taala dalkaasi India waxa uu lahaa qoys waxa uu joogtay haweeney oo aad u jeclaa isagu ma jirin wax dhaqaale ah oo gacanta ugu jiray laakiin wuxuu ahaa nin shaqaale ah oo si maalinle ah u shaqo taga oo shaqadii uu maanta soo helo waxa uu ka soo helo ku noolaa xaaskiisu waxay ahayd mid dulqaad badan oo noloshiisa wax badan ka qabatay ogsoonow in noloshu marka ay adag tahay ay xaaskaagu ku dulqaadato kula fahamta xaaladda odagaagu oo dulqaato dadka guriga joogo dhan ay dulqaataan taas waxa ay keentaa aakhirka natiijo wanaagsan oo dadka baraysa casharada berrito soo socda yuu ahaa ninkan waxaan uga bogonaynaa sheekadeena